الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة إيا برنامج كيني سوغانتا أي نوصو ديارسي برنامج شقونيت كدارس maanta waxaan u galaynaa ama waxoogaa ka tilmaami doonaa badweynta mahmaahda. Mahmaahdu waa badweyn aad moodo weliba inay si xeerar nolosha waafaqsana u taalo, mararka qaarna aad moodo inay qaab manhaj ahoo tilmaanaya tayaa isaga taalo ay wax hagto waxna ka digto. marka qeexidda mahmaahdo aad moodo inaan la isku waafaqsanayn in lagu kala tegan yahay baan hadda wax ka tilmaami doonaa aniga iyo weliba aragtiyan sida ila muuqato anigoon cid kale leedahay soo xiginin. mahmaahdu waa oraah kooban oo xambaarsan macno ballaaran ku soo baxday dhacdo meel ka dhacday ama uu yiraahdo qof ay arrin ku dhacday, midaasoo la soo xigto marka la arko dhacdatii hore looga mahmaahay ama hore loo yiri oo kala ah. marka waa oraah kooban markaan leenahay tuduc gabaya bay u dhigantaa mahmaahdu. harag sakaaro iiga kacmooye iiga durug male ciirtaa dhamaa ceebtaa yaqaan. waa oraah kooban oo markaa xambaarsan laakiin marka la yiraahdo furfur macno ballaaran. marka waxay ku soo baxdaa laba midun, qof ay dhibi ku dhacday baa yiraahda ama meel uu joogay wax ka dhacay buu wax ka yiraahdaa. mar kale mahmaahdu waa qaybo saddex baana ugu muhiimsan mahmaahda: halley, labaley iyo saddexley. waxaa jira mahmaaha tiro yar oo 9 ley ah, mid 12 ley oo u dheerna way jirtaa. walow la yiri mid 15 baa jirta, laakiin anigu intii aan maqlay ama aan cid ka qoray ayuun baan sheegayaa maaragtay ee waliba maangalka ah ee maskaxdu qaadan karto. mahmaha 4 ley iyo 5 ley haddaad aragto waa la soo xigtay ama waa la turjumay, laakiin inaga asalka bayska mahmaahdeena salka mahmaahdeenu waa hal leyda ugu badan, 2 ley iyo 3 ley intaas ugu badan. 9 ley iyo waa jira laakiin waa 2 iyo 3. mahmaahdu marka waxa isu xidhan waxaad arkaysaa mahmaahdeenu erayaday ka kooban tahay iyo ujeedada ka hadashay way kala duwan yihiin. inta badan mahmaahdeenu dad, deegaan, duur iyo duunya la xidhiidha, waayo intii aynu magaalownay mahmaha baxdayba ma jirto. hadday baxdana tu qumanba ma badanba maaha. inta ugu badan mahmaahaynu haynaa waa xigasho xilligii dadkeenu miyiga ku noolaa baanay baxday. waana sababtan ballaysinkii barnaamijka u lahaa mahmaahdeenu waxaad moodaa inay qaab xeera u taalo, inay ama wax kaa waaninayso sidaa hayeelin ku leedahay ama inay wax kugu dhiirigelinayso mahmaahdeeyo sidaa fal ku leedahay. tusaale ahaan, laba siday oogiyeen waxuma sheegaan, nin reer u weyn iyo naag umulusaa midna siday wuxuu ogyihiin uma sheegaan. waa wax la iska reebayo, midina waa wax adiga lagaa reebayo ama waa wax sidaa ha noqon lagu leeyahay. oo haddaad reer u weyn tahay dee wax waloo reerka dhexdiisa ka dhaca ha sheegin wey. haddaad gabadh ka umulusay tahay, bukaanka iyo daweeyaha sir baa u dhaxaysa, waxaa cid kale ha baahin qofka ceebtiisa wey. marka waa qaab xeer nololeedaba isaga taala. arad waa dan, uskagna waa doqoniimo, waa mahmaah hallaya. inuu dadku arado oo uu hubeelaa ama wuxuu ku gato uu waayaa dantaa keenaysa, laakiin labadan aad xidhantahay inay mar walba kugu iskagoobaan waa doqoniimo wey. marka mahmaahaynu waxay u yaalaan qaab xeer nololeeda oo aad moodo inay wax jihaynayso ama ay wax kuu diidayso. arad waa dan, uskagna waa doqoniimo. baahidu waa wax jira oo bini aadanku uu la kulmaa. tixbay ku jirtay dadku waa nin ladanoo rabbi duunya siiyeyo, danta ruux la liito misna duunku hoosiyo damaciisa kula faqay, noloshu la daris yahay daahin uu ku qariyo aan dushiisa laga garan diifta iyo baahida. macnaha hadday duruufi ku hayso dee la garay waxaa ku gadatay waad weyday, laakiin waxaad ku nadiifisay maad waayin baa imanaysa. marka mahmaahdu waxay isu xidhan fahankii. qaar baa mahmaaha waxay isu xidhan fahankooda iyo siday ku soo baxeen. qaarna waa la fahmi karaa. iminka haddii la yidhaahdo ood kaa dheeri kuma dhaxan tirto, ujeeddadu ood ma aha,
laakiin tolkaa kaa fog waxa kuu dhaama dariskaa kuu dhow aa kala hayba ahaataane laakiin ujeeddadu ood maaha ee waa ereyadaa ah wixii aynu agabkaynu ahaan jiray bay oodu ka mid ahaydee reerka ku dayrnaa xoolaha ku dayrnaa mahmaahaha midna adigoo qisadeeda hele mooye fahankeedu kugu adkaanaya mahmaahda tidhaahda laba walba isa saarayo laba tagoogo isma saarin faham bay ilaa qisadeedii aada ogaato waad isweydiinaysaa horta tagoogtu waa luquntana tagoog la yidhahda laba walba isa saarayoo laba tagooga isma saarin waa isweydiinaysaa labadan tagooga maxaa looga jeedaa labadan tagooga maxay yihiin ma dadbaa ma xoolaa ma xawaaye ma marka waxaa la yidhaha sheekaday ku soo baxday ba ahayd nin laba reer adhiga u raaci jiray ayaa maalin arafa ah baa adhigii uu dareerinayay lagu yidhi neef aanu ka soo saar qalanno labadii reer mid walba neef buu uga soo saaray markii isagu uu adhigii soofiyey ama foofiyuu kaxeeyey hiyifaalootan wax la yidhaha baa jira niyaddu iska lahaa hadday kuwaasina garab kuu dhigaan kuwaasina awlal kuu dhigaan hadday kuwaasi jeeni kuu dhigaan kuwaasina misig kuu dhigaan haddii hiyifaalootankii adhigii buu soo hooyey galabtii intii adhigu mayracanayay ayuu isaguna reerihii tegoo dabadeetana reerkii u horreeyo ardaagiisa soo fadhiistay ayaa luqun u keenay tagoog macnaha hilibkii wuu saluugay oo kuwa maanta niyadda gashaday kuma jirta tani wuxuu is yidhi bal reerkii kale inay cad hagaagsan kuu dhigaan oo markuu reerkii kale loo tegay bay tagoogteydii usoo erey baa markaa ka soo baxay odhanaya laba walba isa saarayoo laba tagooga isma saarin oo macnaheedu yahay laba walba ku fikirayoo laba tagooga ama laba luqumoodba dee luquntana cadba kuma yaallo marka neefka la qala neefka adhiga ahi waa labadaa jeenyooda hore iyo labadaa miskooda dambe iyo dee intaa feedhaha ah dhabarka iyo luquntu cad male warku jirtana dee halka neefka lagu qalaabaa waagii hore looga iman jiray marka mahmaahda fahankeedu wuxuu ku xidhan yahay qisadeeda mahmaahuhu markaa waxay u yaalaan qaab ah dhiirigelin ay wax kuu dirayaan iyo waanin ay wax kaa reebayaan mahmaha baa tidhaahda darandooriyaaba naasnaasi ereyada asalkii mahmaahda iska soo jeedo neefku marka uu dhalo geel oo kale haleelada caanaha badan markay dhasho waa la darandooriyaa laba nin baa afarta naas labada miskeed afarta naasee hasha labada bidixna haaneed baa labada midigna miskeed way darandooriyaan markay muddo ka soo wareegtay hashii dhaqayo noqoto dhaqayadu waa sanad kadib hashii sidii loo darandooriye looma darandooriye naas baa loo lisaa markaa mahmahadan tidhaahda darandooriyaaba naasnaasi waa mahmaha sheegaysa hadduu wakhtigu intuu hore kuusan yahay oo badhaadhe iyo barwaaqiyo ladnaa ku jirto hadda nolosha inku raacanina inay kuu dambaysaa laga yaabaaye waa sababta loo yidhaahdo hadday nolol wanaagsani ku soo marto laguma talax tago laga yaabaa saacadaha soo socda inay kaa oyso hadday muruga ku soo martana laguma ka talax tago saacadaha soo socdo laga yaabaa inay kaa qosliso oo waa ninkii tixda tiriyee lahaa bustaana kuma waara bilicdiiso buskiyo waysxigaan barwaaqadu buuli marka mahmaadaha darandooriyaaba naasnaasi waxay muujinaysaa nin kasta oo ladnaan iyo badhaadhe iyo barwaaqo hore soo gala laga yaabaa inuu budulka ku dambeeyo iyo buska marka waa intaa aada wanaagga ku jirto dee waxyaalaha falin waxay isku mahmah baad tidhahdaa dhubuq hore dhabanahays dambay leedahay iyaduna waxay ka digaysaa ay dadka ka waaninaysaa inuu qofku si xun u socdo oo haddaad dhubuq macnaha si basar xun u socoto ama si basar xun u dhaqanto dhabanahays iyo murugo isma waayaysaan waa halka mahmaada dhigeeda kale ka tidhaahdo qonyar socdo qodaxima muddo mahmaahaynu markaa hallaydaa horta ugu badan hallaydu waa mahmaada ugu badan aynu adeegsano waana aftahamo aada moodo inay iskaba daliil tahay oo dadkeenu markay mahmaahda adeegsanayaan qaab daliila bay wax u soo qaataan
mahmaahayna qaar guracani way ku jiraan oo dee waxaa ka mid a mahmaahda tidhaahda haddaad meel lagu ilaayahay tagtay ishaa la iska ridaa mahmaahdaasi aniga iyo caadiyanba sidee muujinaysa waa mahmaah qariban oo haddaad tagta meel xumaan la samaynayo dee xumaan la falayo dee xumaan fal maaha haddaad tagta meel xaaraan la cunayo dee xaaraan la cun maaha waata la yidhaahda siday dadku doonayaan looma noolaadee sida saxdaa baa loo noolaadaa intay dadku nololiska yeelyeela kugu jeclaan lahayn xaqiiqadaada ha kugu aqbalaan markaa waa mahmaahaan anigu shakhsiyan diido haddaad meel lagu ilaayahay tagto qof xumaan u qiil samaynaya wey haddaad meel dee khariban oo khamaar iyo dhibaatiyo rabshaday taalo tagto la dabaalano waxaa ka mid a mahmaahda tidhaahda dumarka beenna waa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa sideeday u qaldan tahay beenta dee ilaahay baaba reebay beentu hal mar un bay bannaan tahay waa maraad wax ku aslaaxinaysood wax ku nabadaynaysood wax ku hagaajinaysood wax ku badbaadinayso inanaad maanta been u sheegtay ood been ku keentay guri seeskiisu been yahay ma isagaa dhisnaanayaba hadduu dhisnaadana si khariban buu u dhisan yahay markaa maaha mahmaah quman laakiin 99% iyo badh mahmaahaynu qaab waaqic nololeeda bay u yaalaan intaanad falin ka fiirsabay waa hubsiimo oo waxay la macnatay tan tiraa hubsiimo hal baa la siistaa mahmaaha kuwa hallaydaaba ugu badan markaynu xagga hore kusoo qeexinay waa inaga lahayn mahmaaha waxay kusoo baxaan ama dhacda adiga kugu dhacday ama meeshaa joogtay mid ka dhacday dabadeedna waxaa la soo xigtaa mar wixii tiitu lamida la arko ninbaa dee isaga abaar baa dhacday xoolihii baa ka leeday ka dhamaaday reerkiisiibuu dabadeedna ugaadhsi iyo hilbihiia ugaadhka iyo wuxuu soo helo hilba uga dhigi jiray sudug iyo deegaan durugsan ka yimid baa wuxuu soo doontay oo Soomaalidu waa tiraa laba kala bariday kala warla ninkii oo maalinta ugaadhna soo waayay ayaa reerkiisu iyo caruurtii baa ka soo riyaacay aaba awoowa jooga dee waa isaga aabihii ma noole uu gartay inuu sudug yahay marwadiisa aabaheed dadna soo fariisto odaygii baa inankii u warramay inuu wax ka doonayo dadna inankii baa yidhi adigoo harsan waayey ma lagu hargalay adigoo harsan waayey ma lagu harsadayna waayey marka waxay noqonaysaa adigoo adigii dee baahi iyo wax helid la soo ka harsan waayey wax raadin cid wax kaa doonaysa ma kuu sii fadhiisatay dee waa adigoo intaad shaqo tagtay macayoom soo waayeyo nin wax kaa doonaya kuu fadhiyey marka waa mahmaaha u yaala waxay ku soo baxaysaa qofkan waxii la kulmay buu wax ka odhanaya mahmaaha kuwa ugu badani waa halle waxaa jira mahmaahda labaleyda ah waa laba isku sidkan midna maskaxda ku haya mahmaahdu ama halle ha ahaato ama labaley ha ahaato ama saddexley ha ahaato xaraf raac bay leedahay weliba xaraf raac sida gabayga ah bay leedahay adigoo harsan waaye ma lagu harsaday laba ha baa ku jira ciirtaada dhamaa ceebtaada yaqaan laba ca baa ku jira hubsiimo hal baa la siistaa laba ha baa ku jira dhubuq hore dhabana haystan bay leedahay laba dha baa ku jira markaa mahmaaha caynkaasa markay labaleyda tahayna marba mid baa jirta xataa saddex xaraf raaco isku mid soo galaan inta badan iyadiyo gabayguna sibaaba isu galaan oo waxa jira mahmaha gabaya mahmaada marna gabayga iyadoo furfuran baa lagu daraa marna iyadoo isku cufan baa lagu daraa cuquba halkii lagu galay caw ku hurudaa caruurtay ka leysaa qofkii caana baas dhamay hadduu boqorku calankan dul suray igu xuseen waaye macadaawuhu iga xiga caaqilnimadiisu mahmaada hore way cufan tahay midna iyadoo furfuran baa sida doodaan gabayga lagu jira raggii aabayaasheen dhalaa dhaafay hadal weyne mahmahyaday inoo dhigeen midaan ka soo dheegay dhawaaq xun iyo cadowga dhafoor xun iyo cadowgaagu yuu dhuubni kaa garane si dhooma inaad buuxsato daragtay kuu moodo waxaaba lagu soo dhaashadaa dhuux sakaara ah haddaad hadalku meeshu u dhici sii dhadhamisaana dhudhunkeeda taa lama lahayn dheef ka raadsadee macnuhu waa dhigaa lama barya ceeb ka dhowrsada oo macnaheedu yahay mahmaahda tidhaahda cadowgaaga dhuux sakaaraa lagu dhaashadaa macnaheedu cadowgaagu yuu diif iyo darxumo kaa garan wey oo waxay la macnatun haddaad dhimanaysana dhareerkaa la iska duwa markaa mahmaaho waxay gabayadana waa lagu daraa mar iyadoo isku cufan baa lagu daraa marna iyadoo furfuran baa lagu daraa waliba dhoodaan waa ninka gabayadiisa mahmaaha ugu badani ku jiraan gabay uu leeyahay 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo ka badani buu ku jiray intaynu
qaybta labaad ee 2 iyo 3 la iyo u gudbidno waxaan ku soo koobaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh